kiiskii la xaliyay 19 sano kadib, yani markuu dhacay 19 sano kadib. Gabadhu dhalatay dalkaasi Cumaan la dhahdo Huda baa waxay ku noolaan jirtay caasimadda Ammaan ee dalkaasi Urdun iyadoo laba wiil oo walaaladeeda iyo aabahood hooyadoodii oo yar bay dhimatay kadibna aabihii baa geeriyooday. Tacsidii aabuhu markay dhamaatay wax yar kadib waxa la waayay gabadhii ahayd Huda. Wada markii la waayay walaaladeed waxay yiraahdeen waxaan u maleynaynaa inay baxsatay oo nin iyo wax noocaas la baxsatay. gabadhii waa la raadiyay waa la waayay jaani cid meel ay dhigtay qadiyadeedii waxay noqotay yani qadiyatu hurub gabadh baxsatay oo qoyskooda ka baxsato nin iyo wax noocaas la baxsatay baa lagu qoray. xilligaa waxay ahayd 2013 xilligaas waxay ahayd 2003 sanad baa la joogay sanad labaad mid saddexaad afraad 19 sano kadib gabadhii labadii wiil ee la dhalatay mid kamid ah oo mid ka yar oo Cuday magaciisa la yiraahdo xilligaas midka weyne wuxuu ku maqnaa Turkiga ba waxay sheekaysanayeen maalin in ay saaxiib yihiin meel bay yani cabitaan iyo wax ku wada cabayeen. ninkan Cuday la dhashay ba wuxuu ka cabanayay ninkan waxa la Cuday saaxiibkii ah wuxuu ka cabanayay xaaskiisa oo wuxuu lahaa yani xaaskaygu way dhibtay way dacwad badan tahay xaaskiisu ka cabanayay. wuxuu yiri xalka ugu fiican ee xaaskaaga kaga takhalusi kartid ma ku sheega cabitaan darooga ugu dar markay daroogotana ceeji markay dhimatana intaad silsilada ku xidhxidhidad jawaan ku ridid gabigeedaba meel mahjuuro guryaha laga guray kharaabadaha ee meelaha aan la deganayna meelahaas oo kale wuxuu ku soo tuur cid ku ogaanaysa iyo cid ku kashifaysa midna ma jirto. ninkii xogaa uu yar fikiray arrinkan ninkan ka sheekaynaya waxaan maskaxdiisa yar celceliyay wuxuu yiri mar kale aan isu arki doonaa mar kale aan isu iman doonaa maca salaama. ninkii markuu tagay wuxuu ka shakiyay aad uga shakiyay ninkan la yiraahdo Cuday walaashii oo ka yar oo Huda la yiraahdo baa la waayay 19 sano ka hor. markii la waayayna gabadha waxa loo qoray oo kiiskeeda yani laga dhigay sida inay baxsatay oo kale nin iyo wax noocaas ay la baxsatay. ninka wuxuu soo xasuustay wiilkan iyo walaalkiisa ka weyn gabadh la dhalatay oo ka yar labadoodaba oo Huda la dhihi jiray 19 sano ka hor in la waayay. gabadhii inaan dib loo arag yani 19 ka sano hadii xataa nin la baxsatay ninkii inay guursatay meel ay ku dambeysay wax ka sheekeynaya lama arag. ninkan wuxuu xaaskaaga darooga oo kiniin hurdo iyo wax darooga ah ugu dar cabitaanka markay cabtay seexatana ceejiyo inta gabigeeda waxay xidhada jawaan ku ridid meelaha guryaha kharaabadaha ku soo tur. gabadhan la yiraahdo Huda markii la waayay wiiga kadib ayaa waxa la helay meyd waa 19 sano ka hor meyd meel yaalo qof yani la xidhxidhay la dilay waa la aqoonsan kari waayay dhaqaatiirta meydka baadho waxay dhadeen qofkan waa la daroogay waana la ceejiyo naqaska ayaa lagu dhajiyay saasuuna ku dhintay. meydkii barigii la helay wixii ninkii waxba soo xasuustay laamaha amnigu u tagay wuxuu dhigay nimankan waan ka shakiyay walaashood baa la waayay 19 sano ka hor waxaan u maleynayaa inay dileen. ninkii Turkiga ku maqnaa uu soo laabtay wadanka markuu soo galay waa la qabtay kii Cuday ahaa ninka kula xaaskaaga dilna waa la qabtay labadoodiiba waa la baaray baaritaan dheer marka lagu sameeyay waxay qirteen walaashood inay nimankan dileen 19 sano ka hor si ka saara laamaha amniga ay ugu sheegeen inay walaashood nin la baxsatay. marka la yiri maxaad ka wadeena waxay dhaheen aabaheen baa dhintay kadibna waxaan damacnay inaan dhaxalka qaybsano dhaxalka 3 meelood in loo qaybiyay noqon lahayd si aan dhaxalka 3 meelood loogu qaybino 2 meelood loogu qaybiyo waa inaan Huda meesha ka saarnaa. marka saas darteed ayaan Huda u dilay 19 sano kadib baa nimankii marka maxkamad la soo taagay labadoodiiba waxa lagu xukumay xabsi daayin.